السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkaad naga daawanaysid waa abno official magacayga waa Cabdiraxmaan Cali Muuse muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa farqiga u dhexeeya maxaa la dhahay suuqgeynta iyo marketinga suuqgeynta iyo iibinta suuqgeyn waa waxa u taqaanid marketing iibintana waxa u taqaanid sales badanaa waxaan aragnaa shirkadaha ganacsatada inaysan kala saaraynin suuqgeynta iyo iibinta farsamada suuqgeynta waxay qayb ka qaadanaysaa farsamada iibinta kooxda suuqgeynta waxay qayb ka yihiin kooxda iibinta badanaa qolooyinka maamulayaasha shirkadaha ama maxaa la dhahay dadka shirkadaha iska leh oo kale ama qaar sales managerada ka mid ah waxaa arkaysaa inay isku qaldayaan masna aysan kala saaraynin shaqada marketinga iyo shaqada iibinta sidoo kale shaqada marketinga waa cunsurka ugu muhiimsan maxaa la dhahay iibinta badanaa suuqgeynta waaba boqolkiiba 70 ama boqolkiiba 80 waxa uu customer-kaani uu sheygan u soo aadi karo amba maxaa la dhahay haddii aad adiga u xayeysiisid iibintu waa dhamaystirta suuqgeynta iibintu badanaa waxay dhamaystirtaa suuqgeynta kasoo qaado kale kasoo qaad shirkadda Apple waxay soo saartay maanta iPhone 13 Pro Max markay 6 bil ka dhiman tahay ama 3 bil ka dhiman tahay waxay dhahday ku dhawaaqday magacii iPhone 13 Pro Max waqtigaas maalintaas xilligaas lacagtaas ayaa lagu soo saarayaa featureskiisa lagu sheegay noocaas waaye 4 kaamiro leeyahay 3 kaamiro leeyahay kaamiradiisa intaas wax ka toobi karaa securitygiisa intaas waaye macluumaadkaas intaas ku kaydsan kartaa qiimahaas ku gadan kartaa suuqaas ku gadan kartaa meesha ugu horeysa laga soo saarayo intaba hal mar la wada tirinaya waaye suuqgeyn 3 bil ka hor ama 6 bil ka hor shay inta la soo saaran loo sameynaya si adood saleskiisa oo hal mar kor ugu kaco marka maalintii la soo saaro oo lagu dhawaaqay in la soo saaray oo suuqii loogu talagalay la geeyo waxaa arkaysaa in kumanaan qof ay fayl ugu jireen ama ay sugayeen si ay u gataan soo maaha si ay u gataan marka iibinta markaas waxay noqonaysaa dhamaystirka suuqgeynta doorka suuqgeynta waa soo jiidashada dadka loo dan leeyahay si loo kasbado ihtimaamaadkooda si ay wax u iibsadaan doorka iibinta wuxuu imaanayaa kadib markii qofkii loo dan lahaa uu soo galo xirada oo aad doonaysay inuu kaa iibsado waxaad u soo bandhigtay oo lacagtiisa uu baxsado dabcan waa fahantaa rajeynaya hadduu alla idmo suuqgeyntu waxay qayb ka qaadataa ama inay dadka wargeliso si maxaa la dhahaye loo sheego in badeecadaas noocaas ah in la helayo ama adeegaas noocaas ah in la helayo suuqgeyntu waxay ku boorisaa dadka waxay badeecadan u tahay waxa adeegani uu yahay faa'iidada ay ka heli karaan waxa baahidooda qaabka u dhamaystiri karto iyo sida ay mar walba ula jaan qaadi karto ihtimaamaadka ay leeyihiin iibintu dadka waxay ku qancisaa marka shaqsiga wuxuu ku qancaa markaan in badeecadani ama adeegani uu xalin karo baahiyadiisa iibinta marka qofkan lacagta uu bixinayo waa mar uu qofkani ku qancay in sheegani uu dhamaystiri karo baahiyadiisa kana dhigi karo inuu go'aansado wax iibsado lacagtii diyaar leeyahay go'aankii ugu dambeeyay qaatay final decision qaatay oo ku qancay sheegan wuxuu ogaaday in sheegan baahidiisa uu dhamaystiri karo marka meeshan waxaa ka ogaaday farqiga u dhexeeyo maxaa la dhahay suuqgeynta iyo iibinta badan jaanka cusubta subscribe si kuusoo gaaraan muuqaalada insha Allah